Salaan. Ku soo dhawaada muuqaalkan aan kaga hadli doono 9 caadooyin oo dadka saboolka ku haya. Qaar badan oo naga mid ah ayaa leh caadooyin gaar ah oo la quman qofka, kuwaas oo u muuqda kuwo aan waxyeello lahayn, laakiin dhab ahaantii waxay naga celin karaan in aan helno xasilooni dhaqaale. Fiidiyowgan waxaan kaga bogsan doonaa caadooyinkaas iyo sida loogu beddelo kuwo wanaagsan. Caadada koowaad: samaynta iibsiyada xamaasadda leh. Iibsiga xamaasadda leh ayaa ku faarujin kara oo si degdeg ah u daadin kara akoonkaaga bangiga. Si aad u beddesho caadadan, qaado waqti aad kaga fikirto wax iibsiga ka hor intaadan samaynin, oo ka fikir inaad sugto 2-4 saacadood ka hor intaadan wax iibsan. Caadada labaad: qarashaadka in ka badan inta aad kasbato. Caadada labaad waa qarash ka badan inta aad hesho. Caadadan waa qalad guud oo keeni kara dayn iyo culays dhaqaale oo ku soo wajaho. Si aad uga gudubto caadadan, samee miisaaniyad oo ku adkayso, kana fogow wax iibsiga degdega ah. Caadada saddexaad: ku noolaanshaha nolol khiyaali ah. Caadada nambarka 3 waa nolol ka baxsan awooddaada. Tani waxay ka dhigan tahay inaad kharash ka badan ku bixinayso qarashyada qaab nololeedka intii aad awoodid. Si aad uga gudubto caadadan, diiradda saar inaad ka hoos noolaato awooddaada, kana fogow sicir bararka habnololeedka. Caadada afaraad: ku guuldaraysiga meel dhigashada iyo maalgelinta. Adiga oo aan waxba kaydsan oo aanad maalgelin, waxa aad weyday fursadaha aad ku kobcin lahayd hantidaada. Si aad u beddesho caadadan, ku bilow in aad meel iska dhigto qayb ka mid ah dakhligaaga bil kasta. Ka fiirso inaad geliso miisaaniyadaha qiimaha jaban. Caadada shanaad: qaadashada deynta. Ururinta deynta ayaa laga yaabaa inay si xad dhaaf ah ay gacanta uga baxdo, ay noqoto mid culus. Si aad uga gudubto caadadan, xoogga saar inaad iska bixiso deynta sida ugu dhaqsaha badan, kana fogow inaad qaadato deyn cusub. Caadada lixaad: la'aanta miisaaniyad. Miisaaniyad la'aan way adkaan kartaa in la ogaado meesha ay lacagtaadu ku socoto iyo sida loo sameeyo isbeddel. Si aad uga gudubto caadadan, samee miisaaniyad oo ku adkayso. Caadada toddobaad: iska indhatirka biilasha iyo deynta. Caadada nambarka 7 waa iska indhatiridda biilasha iyo deymaha. In la iska indhatiro biilasha iyo deymaha waxay horseedi kartaa ujrooyinka daahitaanka iyo qarashaadka dulsaarka, waxayna dhaawici kartaa dhibcaha deynta. Si aad uga gudubto caadadan, iska dedeji deynta oo ku bixi waqtigii loogu talagalay. Caadada 8: raadin la'aanta la talin dhaqaale. Aqoon dhaqaale la'aanteed way adkaan kartaa in la sameeyo go'aano xog ogaal ah ku saabsan lacagtaada. Si aad uga gudubto caadadan, raadso talo dhaqaale iyo waxbarasho oo la soco wixii ku saabsan maaliyadda shakhsi ahaaneed. Caadada 9: isbarbardhigga naftaada dadka kale iyo ku lug yeelashada sicir bararka habnololeedka. Caadada 9 waa in aad naftaada la barbardhigto dadka kale iyo ka qayb qaadashada sicir bararka habnololeedka. Isbarbardhigga naftaada dadka kale waxay u horseedi kartaa sicir barar qaab nololeedka, halkaas oo aad ku bixiso lacag badan si aad ula socoto dadka kale. Si aad uga gudubto caadadan, diiradda saar yoolalkaaga dhaqaale oo iska ilaali inaad isbarbar dhigto kuwa kale. Gabagabadii, 9kan caado ayaa naga celin kara in aan xaqiijino xasiloonida dhaqaale iyo guusha. Isku day inaad dhaqangeliso 9kan caado.